kusoo dhawaada daawadayaal wararka ugu waaweyn ee dunida waqtigan. Haddii aan ku bilowno, Somaliland ayaa sheegtay in la maxkamadeynayo askari walba oo u goosta dhanka maamulka Puntland. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre maanta waxa uu soo xiray imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka. Magaalada Muqdisho, degmada Hodan, wiil dhalinyaro ah ayaa lagu dilay goordhow. qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah UNHCR oo muhaajiriin ay Soomaali ku jirto ka qaaday dalka Liibiya oo dagaal sokeeye ka socdaan muhaajiriintaas oo loo daadgureeyay dalka Talyaaniga. qodobadaas ayaad ku maqli doontaan warkeena dunida. haddii aan ku bilowno, Somaliland ayaa ka hadashay ciidamo maalmihii la soo dhaafay u goosanayay dhanka maamulka Puntland. Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in la maxkamadeynayo askari walba oo ka goostay Somaliland una goosta maamul kale. Wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa ku tilmaamay qaran dumis saraakiisha ka tirsanaa ciidanka Somaliland ee u goostay dhanka Puntland. Wasiir Caateeye waxa uu sheegay in la maxkamadeyn doono saraakiisha goosatay ee shalay isku dhiibay Puntland, waxaana uu sheegay in uusan jirin amar ay Somaliland bixisay kaasoo lagu weerarayo gobolada Sool iyo Sanaag sida uu sheegay. amarka ka soo baxay Somaliland ee sheegaya in la maxkamadeynayo askari walba oo ka goosta Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli Puntland ay dhawaan soo bandhigtay ciidamo ka soo goostay Somaliland kuwaasoo garaado la siiyay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo weheliyay wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa soo xiray imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka oo maanta la soo gabagabeeyay. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa booqday xarunta Gahayr ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed oo ka mid ah goobaha imtixaanka maalmahan uu ka socday si uu u ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanaadka uguna dhiirigeliyo in ay sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ardayda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u dhabar adeegaan waxbarashada oo ay guul ka soo hooyaan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ardayda u sheegay in ay yihiin madaxda berri ee loo baahan yahay in ay horumariyaan aqoontooda maanta. Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ardayda Soomaaliyeed ay mar walba diyaar u yihiin inay waxbartaan. imtixaanka shahaadiga ee sanadkan waxaa ka qayb galaya 13258 arday. waxaa si isku mid ah uga socday magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolada dalka. imtixaankan ayaa soo bilowday 27kii bishan May. Wasaaradda waxbarashada ayaa horey u burburisay imtixaan la sheegay in uu banaanka u baxay. magaalada Muqdishona, degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ah. Cabdalla Maxamed Maaxi oo ah marxuumka la dilay ayaa waxaa kooxo bastoolada ku hubeysan ay ku dileen degmada Hodan ee gobolka Banaadir, gaar ahaan xaafadda Kaasa Balbalaare. dableyda hubeysan ayaa kadib dilka goobta isaga baxsaday, waxaana halkaas gaaray ciidamo ka tirsan booliiska gobolka Banaadir oo meesha ka qaaday meydka wiilka dhalinyarada ah. ugu dambeyntiina, hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay dalka Liibiya ka qaaday in ka badan 150 qof oo ka mid ah muhaajiriin dalka ku noolaa, waxaana dadkan la geeyay dalka Talyaaniga si loo dejiyo. muhaajiriintan laga qaaday Liibiya ayaa waxay u kala dhasheen dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea iyo Suudaan, waxaana talaabadan ay qayb ka tahay badbaadinta qaxootiga faraha badan ee ku sugan Liibiya oo ay dagaal sokeeye ka socdaan. dadkan ayaa badankooda sheegay in ay u baahan yihiin nafaqo, waxaana ku jira 65 caruur ah iyo hooyooyinkood, waxaana ay si nabadgelyo ah ku tageen dalka Talyaaniga oo ay markii hore ujeedkoodu ahaa inay tahriib ku galaan. Jane Paul oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda UNHCR oo ku sugan dalka Liibiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo daadgurayn bini'aadanimo oo dheeri ah si loo badbaadiyo kumanaan qof oo Liibiya ku xayran. waddanka Liibiya oo ku yaala waqooyiga Afrika ayaa waxaa ka socda dagaal ay ku loolamayaan siyaasiyiinta dalkaas oo isku haya maamulka dalka, waxaana dagaaladan ay sababeen in badan oo qaxooti ah in ay waxyeello ka soo gaarto.
dadka la daadgureeyay iyo kuwa weli ku harsan Liibiya ayaa waxa ay dhammaantood halkaa u tageen inay u safraan Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan midii ay uga soo tageen dalalkooda. wararkii caalamka ee waqtigan waa naga intaa. fadlan haddaad nagu cusub tahay ku soo biir channelkan oo rukumo si aad u hesho warar iyo warbixin xiiso leh. anigoo Cabdirasaaq Xirsi ayaa wararka caawa idin la socodsiinay. intaan warar waan oo kala ah ku kulmi doono. nabadgelyo.